xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay natiijadii ka soo baxday komishanka doorashooyinka ee ku aadanay doorashadii ka dhacday dalka 13 bishii 11 ee sanadani. Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka madaxtooyada warbaahinta kula hadlayay gudaha aqalka madaxtooyada ayaa hambalyeeyay madaxweynaha la doortay, isagoo sidoo kalena wasiirku hambalyeeyay labadii xisbi waa wadani iyo ucude ee laga guuleystay sidii u aqbaleen natiijadii ka soo baxday komishanka doorashooyinka, isagoo sidoo kalena ammaan duldhigay ciidanka qalabka sida sidii ay uga qayb qaateen sugitaanka amniga. wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxaan sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo muujiyey xilkasnimo, isku duubni iyo xilgudasho aad u weyn oo doorashada ku maamulay si mas'uuliyad iyo mudakarnimo leh. waxaan hambalyeynayaa musharaxa jagada madaxweynaha cusub ee ku guuleystay jagada madaxweynenimo mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland oo mar labaad ku guuleystay jagada madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. guusha ay xisbi ahaan kulmiye gaadhay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo si geesinimo leh u gutay xilkii ka saaraa qaranka ilaalintiisa, adkeynta amniga dhammaantood, waana wax maanta lagu faano oo hambalyeynaya taageerayaasha xisbiyada wadani iyo wicid oo u tartamay si qiimo leh oo raganimo leh, iyagana waa bogaadinayaa. waxaan runtii iyagana hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa musharaxa u tartamayay jagada madaxweyne ee xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe oo si xilkaasnimo leh u aqbalay natiijadii iyo geedi socodkii doorashada guud ahaanba. Faysal waa nin ku caana Somaliland danaheeda guud inuu isbarbar taago, waa oday waayo araga. waxaan ku bogaadinayaa go'aamada geesinimada leh ee uu qaatay. sidoo kale waxaan bogaadinayaa guddoomiyaha xisbiga wadani oo u tartamayay musharaxii ahaa u tartamayay jagada madaxweynenimo ee xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro aqbalaadii uu natiijadii aqbalay. Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka madaxtooyada oo hadalkiisa sii wata ayaa u mahad celiyay dawladaha Itoobiya iyo Djibouti iyo sidoo kale wadamadii gacanta ka geystay habsami u socodka doorashadii dalka ka dhacday horaantii bishani. wasiirku mar kale arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi dawladaha deriska ah, dawladda Itoobiya iyo dawladda Djibouti oo nagala shaqeeyay nabadgelyadii xuduudaha, isu talowga dadka noo fududeeyay, iyagana waxaan jecelahay inaan halkan ka bogaadiyo. waxaan kaloo jecelahay inaan bogaadiyo dalalkii aynu saaxiibka ahayn, gaar ahaan deeq-bixiyaasha midowga Yurub, Ingiriiska iyo Maraykanka oo si weyn saamayn iyo talo iyo tusaaleba ku lahaa. Khadar Kaafi, SBC, Hargeysa.